السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديسمبر سنة 1978 magaalada Chicago ee gobolka Illinois wadanka Mareykanka boolisku waxay raadinayeen wiil dhalinyaro ah oo la waayay. Intii ay baaritaan ku jireen waxay fasax u heleen inay baaraan guriga mid kamid ah dadkii looga shakisanaa. Wixii ku bilowday baaritaan caadi ah oo wiil la waayay la raadinayo wuxuu daaha ka qaaday sirta mid kamid ah dilaayadii ugu khatarsanaa taariikhda Mareykanka waxaana lagu magacaabaa John Wayne Gacy. toban maalin ka hor xilligaas waxaa la waayay wiil lagu magacaabo Robert Beast. Robert waxaa la arkay markii ugu dambeeyay isagoo taagan iridka farmashi gurigooda u dhawaa oo ka shaqayn jiray. Waxaa ka soo doontay farmashiga hooyadii. Markii ay banaanka cabaar ku sugtay wiilkeeduna uu imaan waayay, waxay ka soo degtay gaariga. Markii ay raadidana waa ay weyday. Waxay u sheegeen dad goobta ka dhawaa in markii ugu dambeeyay maalinkaas xilli hore oo kamid ay arkeen isagoo la taagan nin lagu magacaabo John Wayne Gacy. John Wayne Gacy wuxuu dhashay sanadkii 1942 wuxuuna ku dhashay magaalada Chicago ee gobolka Illinois wadanka Mareykanka. Yaraantiisii waxay ahayd noloshiisu mid iska adag, aabihiina wuxuu iska ahaa khamri cab. Markii xoogaa uu soo weynaaday sanadkii 1964 wuxuu guursaday haweeney dhowr carruur u dhashay. 1967 waxaa lagu eedeeyay inuu xadgudub jinsi ku sameeyay wiil dhalinyaro ah waxaana lagu xukumay 10 sano gobolka Iowa. 1969 intii uu xabsiga ku jiray xaaskiisii waa ay kala tageen oo waa ay furtay. Ku dhawaad 2 sano kadib sanadkii 1970 waxaa laga soo daayay xabsiga maadaama uu dhaqankiisa wanaagsanaa. 10 sano markii hore lagu xukumay 2 sano oo kaliya ayuu ka qaatay xukunkiisa. Markii la soo daayay wuxuu u soo wareegay gobolka Illinois halkaana wuxuu ka aasaasay shirkad yar. Sidoo kalena wuxuu ahaa waxa lagu magacaabo clown ama ay muharrij dhahaan Carabtu waa dadka dharka boonbalaha iyo waxa xirta ama kalarada wajiga marmarsada dhalinyarada iyo ciyaalka yaryarna ka qosliya ama ciyaarsiya meelaha xafladaha ah ama munaasabadaha marka la isku yimaado. Wuxuu ahaa noocaas. Sidaas darteed dhalinyarada iyo dadka uu deriska leeyahay ee gobolka Illinois magaalada Chicago waa ay jeclaayeen. Dhaqankiisuna wuxuu ahaa mid iska wanaagsan, wuxuu ahaa nin iska caadi ah. Sanadkii 1972 wuxuu guursaday mar kale haweeney kale. Guurkaasuna wuxuu sii jiray ilaa 1976 kadibna xaaskiisii waa ay kala tageen. 1978 markii la waayay wiilkan lagu magacaabo Robert Beast sidoo kalena loo sheegay ciidanka in markii ugu dambeeyay la arkay isagoo la taagan ama la hadlaya nin lagu magacaabo John Wayne Gacy. Boolisku isla markii waxay tageen guriga Gacy si ay baaritaan ugu sameeyeen. Isagu Gacy waa uu inkaray in Robert Beast uu yaqaanay inay is arkeen. Guriga markii ay tageen oo baaritaan ay ku sameeyeen waxay ka heleen leysinada dhalinyaro hore loo waayay oo ciidanku ugu diiwaan gashanaa in la leeyahay. sidoo kale waxay ka heleen faraantiga wiil dhalinyaro ah oo 19 jir ah oo lagu magacaabo John Sheck. isagana wuxuu ugu diiwaan gashan yahay booliska in la leeyahay waxaana la la'aa tan iyo January sanadkii 1977. baaritaan hore oo la sameeyay wuxuu cadeeyay in laba kamid ah shaqaalaha John Wayne Gacy sidoo kalena la leeyahay oo ka mid yihiin dadka la leeyahay. mid waxa lagu magacaabaa John Butkovich isna waxa la la'aa tan iyo July sanadkii 1975 iyo wiil kale oo lagu magacaabo Gregory Gotzik oo 17 jir ah isna waxa la la'aa tan iyo December sanadkii 1976. baaritaan kadib boolisku ay isaga soo laabteen gurigiisa isagana lama xirin maadaama aanay cadeyn dhameystiran ku hayn. laakiin dhowr maalin kadib waxay soo qabteen mar kale waxaana lagu eedeeyay markaan in uu ka ganacsanay ama in uu daroogo watay. markii xabsiga la dhigay sidoo kale waxay mar labaad u laabteen gurigiisa inay baaritaan ku sameeyaan. gurigiisa wuxuu ku yaallay meel lagu magacaabo Norwood Park Township oo ka tirsan magaalada Chicago ee gobolka Illinois. markii ay guriga baaritaan ku sameeyeen tookadan waxay fujiyeen qaybta hoose ee guriga. markii ay qaybta hoose fujiyeen mid kamid ah dambi baarayaasha wuxuu arkay in guriga hoos uu soo urayo. markii ay guriga si fiican u fujiyeen waxay guriga hoostiisa ugu tageen lafa bini aadan. markii hore ay guriga tagayeen waxay raadinayeen wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Robert. Robertana waxaa la waayay 10 maalin ka hor ku dhawaad. macquulgal ma aanay ahayn in xilliga uu meedkiisu lafa isku bedelo. booliska waxa u soo baxday in aanu ahayn lafahan lafihi Robert oo ay yihiin lafaha dad kale. markii ay baaritaanka sii wadeen waxay heleen madax bini aadan oo lafa ah. sidoo kale way sii baareen. ugu dambeyn waxay heleen qof dhameystiran oo lafa ah, yani qof dhintay meedkiis oo dhameystiran laakiin lafihi oo kaliya isku xiran.
kadib waxay heleen lafa labaad oo qof dhameystirana waxay heleen mid saddexaad. kadibna booliska waxa u soo baxday in qofkii iska dhigi jiray nin dhalinyarada madadaaliyo oo dhalinyarada ka farxiya uu ahaaba dilaa si isxigxigta wuxuu dili jiray. markii ay arrinkan ula tageen ninkan lagu magacaabo John oo ay baaritaan ku sameeyeen wuxuu qirtay inuu dad laayay, laakiin uma uusan sheegin tirada dadka uu laayay iyo nooca ay ahaayeen ama dadka ay ahaayeen. waxa ay hayaan booliskana waxay ahaayeen lafa oo kaliya. su'aalo badan ayaana booliska jawaab kaga baahnaa. dadkan yay ahaayeen, sidee u geeriyoodeen? su'aalahaas oo dhan waxay kaga baahnaayeen jawaab. qaabka kaliya ay boolisku ay kaga jawaabi kareen waxay ahayd inay lafaha baaritaan ku sameeyaan. dadka dhinta iyagu ma sheegaan xaqiiqada wixii ku dhacay, laakiin lafahoodu iyaga ayaa ka hadli kara oo sheegi kara wixii ku dhacay markii baaritaan lagu sameeyo. dabcan xilligaana DNA-du update ma aanay ahayn oo sida ay xilligan casriga ay u gaartay horumar uma aanay gaarsiisaneen. xilligan way fududahay qofku haddii la helo tin xataa waxaa la ogaan karaa DNA-da iyadoo la baaray ciddu ahaa, laakiin xilligaa arrinku sida uma uusan sahlanayn. xalka kaliya ay boolisku haystaan waxay ahayd inay baaritaan ku sameeyaan lafaha. boolisku waxay baaritaan ku hayeen oo qodayeen guriga hoostiisa 2 bilood. ugu dambeyn waxay ka soo saareen oo ka soo heleen meydka 29 qofood. markii boolisku ay baaritaan ku sameeyeen lafihii ay soo heleen iyagoo kaalmaysanaya dhakhaatiirta, waxa u soo baxday in dhammaantood dadkan uu laayay ay dhalinyaro ahaayeen. sidee ku ogaadeen arrinkaas? lafaha bini'aadamka ee qof walba ku yaala, laf walba cimri markii uu gaaro xadidan 17 ama 18 ama 20 markii uu gaaro ayay ka joogsataa koritaanka. lafta ugu dambeeyda ay qofka koritaanka ka istaagtana waa lafta qoorta. laftaas waxay ka joogsataa koritaanka qofka markii uu gaaro 28 sano. markii ay laftaas baaritaan ku sameeyeen meydka ay soo heleen, dhammaantood waxa u soo baxday in lafahoodu lafa koritaan ku socda ay ahaayeen. sidaasna waxay ku xaqiiqsadeen in 28 dhammaantood ay ka yaraayeen. sidoo kale markii ay baaritaan ku sameeyeen waxa u soo baxday in dhammaantood ay wiilal ahaayeen, hal gabar kuma jirto. sidoo kalena waxay ahaayeen qowqaasiyiin, yacni dad ka soo jeeda asal ahaan wadamada qowqaas ka soo jeeda. sidoo kalena waxay ahaayeen dhammaantood wada cadaan, hal madow ah kuma jiro. sidoo kale waxay boolisku baaritaan ku sameeyeen qaabkii dhalinyarada loo dilay, waxaana u soo baxday in dhammaantood xarig lagu ceejiyay, sidaasna ay ku geeriyoodeen. wuxuu sameyn jiray John Wayne Gacy intuu dhalinyarada soo wado gacmaha ayuu ka xiri jiray birtan oo jeebada ayuu gacmaha kaga xiri jiray, kadibna xarig ayuu ku ceeji jiray, sidaas ayayna ku geeriyoon jireen. kadibna wuxuu ku aasi jiray meydkooda gurigiisa hoostiisa. sidoo kale dadkii aysan aqoonsan boolisku waxay sameeyeen madaxooda intay soo qaadeen madaxii qolfoofta ahaa ayay waxay sawireen wejigooda iyagoo dhoobo isticmaalaya si soo dhaweyna oo si qiyaasa ay u sawireen. masawiradoodana waxay ku faafiyeen bal in cid uun ay soo aqoonsato. qaar badanna sidaas ayaa lagu soo aqoonsaday. wiilkii hore aan kugu soo sheegay oo shirkadda Gacy ka shaqeyn jiray oo lagu magacaabi jiray Gregory Gottlieb wuxuu ka mid ahaa dadka uu laayay ninkan lagu magacaabo John Wayne Gacy. sidoo kale boolisku waxay meydka 4 dhalinyaro ah ka heleen webi u dhow guriga Gacy. 4taasna waxaa ka mid ahaa Robert oo ah wiilkii weyntiisu ay keentay baaritaankan oo dhan. 4taasna waxay ku qiyaaseen inay iyaguna ka mid ahaayeen dadkii uu laayay Gacy. sidaasna tirada guud ee dadkii uu dilay Gacy waxay ku noqonayeen 33 dhalinyaro ah. 29 ay horay gurigiisa uga heleen hoostiisa iyo 4 ay webigan ka heleen. sidoo kale waxaa ka mid ahaa dadkii la aqoonsaday ee uu laayay ninkan lagu magacaabo Gacy, wiil yar oo 15 jir oo ka soo jeeda gobolka Iowa oo lagu magacaabo Timothy McCoy. McCoy waxaa la waayay sanadkii 1972 bishii January, waxaana lagu waayay gobolka Illinois isagoo ka soo laabtay xaflad dhalasho oo ku dhigtay gobolka Illinois. waxaana lagu waayay bosteejada tareenka ee magaalada Chicago, waxayna 20 daqiiqo u jirtaa guriga uu degan yahay ninkan lagu magacaabo Gacy. iyadoo loo fiirinayo waqtigii la waayay Timothy McCoy, waxaa lagu qiyaasay inuu ahaa qofkii ugu horeeyay uu dilo John Wayne Gacy. 2 sano kadib sanadkii 1980 ugu dambeyn waxaa la soo taagay maxkamad. maxkamaduna waxay ku xukuntay dil. 14 sano kadib sanadkii 1994 ayaana xukunkiisa lagu fuliyay oo la dilay ninkaas lagu magacaabo John Wayne Gacy. wuxuu ahaa Gacy mid ka mid ah dilaayadii taariikhda Mareykanka soo maray koodii ugu khatarsanaa. wuxuu dilay 33 dhalinyaro ah. haddii aad doonaydo intaa in ka badan inaad ka ogaato, waxaa ka baari kartaa internetka adigoo ku baaraya John Wayne Gacy. muuqaalkeeni maanta intaasuu ku egyahay. tan iyo kulanti dambe waxaan kaga tagay amaano Allah.